kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka telefishinka Somali Cable oo idinkaga imaanaya studio telefishinka uu ku leeyahay magaalada Muqdisho. warka waxaa idin socodsiin doona hadii Ilaah laga helo anigoo Abdicays Cabdullaahi Riyali. qodobada aad ku daawan doontaan waxaa qayb kamid ah xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya kulan xasaasi oo ay maanta magaalada Muqdisho ku yeesheen waxay kaga hadleen weerarkii dhawaan lagu qaaday guriga Senator Cabdi Xasan Cawaale qaybdiida. wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa xukuumadda Soomaaliya ayaa shijiraad ay maanta qabteen waxay sheegeen inay amar ka soo saarayaan iibsiga xayawaanka diinka oo muddooyinkii ugu dambeeyaba aad Muqdisho looga hadalhayay. Somaliland waxay sheegtay in gudaha Hargeysa iyo guud ahaanba deegaanada ay ka taliyaan xilligan ay aad uga digayaan in laga xuso oo laga dhigo munaasabado lagu xusayo munaasabada Happy New Year-ka ama sanadka cusub. guddiga joogtada ee baarlamaanka Soomaaliya kulan maanta ay yeesheen waxay kaga soo horjeesteen go'aanka xeer ilaaliyaha ay ku aadneed xasanad qaadka laba xildhibaan. hay'adda culimada Soomaaliyeedna kulan maanta ay yeesheen waxay kaga hadleen khilaafka siyaasiga ee ka taagan dalka Soomaaliya. qodobada iyo kuwa kale ayaad warka ku daawan doontaan balse qadar adeega bulshada. xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa kulan xasaasi oo ay maanta ku yeesheen gudaha magaalada Muqdisho waxay kaga hadleen weerarkii dhawaan lagu qaaday guriga Senator Cabdi Xasan Cawaale qaybdiid oo xubin ka ah xubnaha aqalka sare. Maxamed Ciise Maxamuud oo kulankaasi ka qayb galay ayaana warbixintan inooga diyaariyay. senatarada aqalka sare ayaa ka hor inta aysan ka doodin ajandaha labaad waxay cod gacantaaga ay ku ansixiyeen codsi kaga yimid madaxweynaha Soomaaliya oo ahaa inuu ansixiyo miisaaniyada dalka iyada oo golaha aqalka sare aan la horkeenin sida uu ku dhawaaqay gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi. wax diiday male waxa ka aamusay saddex qof. aad iyo aad baad mahadsantihiin. intaasi kadib xildhibaanada aqalka sare ayaa dood adag waxay ka yeesheen ajandahooda labaad oo ahaa go'aanka aqalka sare uu ka qaadanayo weerarkii shalay lagu qaaday guriga Senator Cabdi Xasan Cawaale qaybdiid. 27 sano ka bacdi in ciidamadii iyo shacabka kala shakiyaan in saraakiishu haddana ay sharciga gacanta ku qaataan wax maxkamadu qabanaysa aysan jirin waxaan isleeyahay ummadda Soomaaliyeed ma aqbali karto. wadankan imaaraad ma xukumo maxaa la yiraahdaa niman carab oo imaaraadana hub nooma soo qaadan askarta imaaraadkana waxa loo tababaray Soomaaliya waa ciidamo Soomaali loo tababaray oo sidaan maqlay 1600 ah ciidamada Soomaaliduna waxay ka amar qaataan waa Soomaaliya waa taliyaha xooga dalka. waxaan leenahay arintaas in la baaro si degdeg ah waxaan senatarada ka codsanayaa iyo guddoonka in loo yeero saraakiisha ciidamada amniga iyo wasiirka amniga inta ay xusayso dhan lagu burburiyay dalalka carabta khaliijkaana inagu wada meel kale inaguma imanaysa khaliijku waa kow waa la weheliyaa khaliijku ciidanka uu maanta ku leeyahay hadda waddanka dhexdiisa Yemen yaa burburiyey Ciraaq yaa burburiyey ciidamadii ka shaqaynayay maxaan ku yiraahdaa imaaraadka ayaa burburiyey kuwiina anagana nagu dhex jira. senatarada aqalka sare ayaa intaan markii ay doodo iyo hadallo kala duwan ay soo jeedeen kadib waxaa gudoonkii maanta Abshir Bukhari uu sheegay waxyaabaha ay ka qaadan doonaan falkii ka dhacay shalay magaalada Muqdisho. waxaan mar kale hortina ka cadaynaynaa in arintaas aan dabagal iyo fiiro gaara u yeelan doono aqalkuna dadina u bedeli doono nuxurkeeda tallaabooyin isla xisaabtan uu ku dhigan doono waajibaadkiisa. dhinaca kale xildhibaanada ayaa ugu baaqay madaxda dawladda Soomaaliya in go'aan cad ay ka soo saaraan dhibaatada ciidanka Kenya ay ka wadaan degmada Beled Xaawo ee gobolka Gedo iyo ku xadgudubka dhanka xuduudaha. Maxamed Ciise Maxamuud, Somali Cable TV, Muqdisho. hay-adda DDG ayaa kulan wacyigelin ah oo looga hadlayay la dagaalanka musuqmaasuqa waxay maanta ku qabteen gudaha magaalada Muqdisho sida warkaan uu ku faahfaahinayo Cabdiraxiin Xuseen Ceylaawe. madasha wada hadalka bulshada oo ay soo qaban qaabisay hay'adda DDG Danish Demining Group ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaana looga hadlayay ka hortagga musuqmaasuqa. kulanka waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana dood weyn laga yeeshay sida looga hortagi karo musuqmaasuqa.
haweenka waxgaradka iyo aqoon-yahanadii madasha ka hadlay ayaa sheegay in saameyn weyn Soomaaliya ay ku yeelatay musuqmaasuqa isla markaana qaybaha kala duwan ee bulshada uu saameyn weyn ku yeeshay. waxaa jirto kaleeto ardaygii inta wax ku bartay oo maanta aanan horumar gaarsiisnayn in arday kaleeto dibadda ka yimid oo adeerkiis ama wasiir u yahay ama xildhibaan u yahay kii Muqdisho dhexdeeda ku baahnaana la leeyahay soco xildhibaan raadi la leeyahay xildhibaan muxuuna soo taray asaaba jeebkiisa wax u raadinayo xildhibaanadan jiro rag ka ahaadaano haween ha ahaadaano ninba ninkiisu u ordaayo lama fiirinayo da'yarta kaleeto iyo dadka aan xildhibaanada ahayn in wax loo qabto lama fiirinayo kasta xil qabto wuxuu leeyahay meesha ma joogi doontid guri dhiso sax waas ku afgaranay Soomaa haddii laakiin mar hore uu wanaagsanaan lahaa ama problem cugdad qabi lahayn meesha hadduu tago cugdad ma qabeen barnaamijkaas kama fikireen laakiin meesha markuu tagayaba wuxuu ugu fikiray ama meesha u tagay qaabkii guri uu ku dhisan lahaa waxaa sababa bulshada sabab ah haddii bulshada nadiif tahay madaxda corruption ma samayn karto ninkii lidaa kaaladiyo aniga isku ciidanay xogaa isii maanta meesha ku geeyay ma kuma jiro doyra bulshada nadiif noqoto ya oo ninkii corruption sameynaya soo qabato oo si wada jir la soo kaashado si wadaadka oo sheegay oo loo sameeyo si macnaha qaanuuni ah loo maro oo loo tusaaleeyo madaxda wax macnaha waa sidaas wax aad u fudud noqonaya laakiin marka dhinaca bulshada ka fiirino dhaqankeena iyo Soomaalida wixii gumaysiina baray meelaha marka ka fiirino aad noola culus yahay si looga hortago musuqmaasuqan ragaadiyay qaybaha kala duwan ee bulshada maxaa loo baahan yahay koob horta in Ilaahay loo noqdo waxa ugu horeeya in Ilaahay loo noqdo ثانيا waxa kale oo dadka in lagu beero wadaniyad xubul wadan wadaniyad in lagu beero wadaniyada iyo islaamku way iswaafaqsan yihiin dadka qaar markii wadaniyad la sheego waxay u maleynayaan in wadaniyada ay wax islaamka ka fog inay tahay wadaniyada qofka waa waxa uu wadankiisa inta adiga wadankaada aad jecdo la hela dad wadaniyiin ah ma dhici lahayn musuqmaasuq dadkii hore oo nimankii SYL iyo dadkii inaga xornimada noo soo gaarsiiyay oo soo halgamay naftooda iyo maalkooda u soo horay dad jaamacada ka soo baxay maysan ahayn intooda badan dad dugsiyo sare ka soo baxay maysan ahayn dad aqoon la maysan ahayn laakiin maxay heerkaas ku gaareen maxay Soomaali ku midayeen maxay calan noogu keeneen daacadnimo iyo wadaninimo noogu keeneen iyo Soomaalinimo waxa looga bixi karaa horta in Ilaahay loo noqdo awal Ilaahay in loo laabto oo la iska daayo waxa aan adduun iyo aakhir midna sharafta ku lahayn la iska daayo qabiilka xaqdiga xasadnimada in la iska daayo oo Ilaahay loo soo noqdo in la dhimanayo labada mitir la gelayo oo la xisaabinayo in qof walba ogaado hay-adda DDG ayaa kulamo wada hadal ah oo u dhaxeeya bulshada iyo dawladda waxa ay ka wadaa qaybo ka mid ah gobolada dalka iyo magaalada Muqdisho. Cabdiraxiin Xuseen Caylabe, Somali Cable, Muqdisho. xukuumadda Somaliland ayaa ka digtay in gudaha magaalada Hargeysa iyo guud ahaan deegaanada Somaliland lagu qabto munaasabado lagu weyneynayo sanadka cusub. Abdifataax Cusmaan Cali ayaa warkan Hargeysa inooga soo diray. wasiirka diinta iyo qaafta Somaliland Sheekh Khalil Cabdullaahi Axmed oo qaybo ka mid ah warfidiyeenka kula hadlaya xarunta wasaaradda diinta iyo qaafta ee magaalada Hargeysa ayaa sheegay in xukuumadda Somaliland joojisay xuska sanadka cusub miilaadiga kaasoo laga xuso meelo badan oo ka mid ah dunida. wasiirku waxa uu sheegay in hoteelada la xidho wixii ka dambeeya 12 caawa. dhanka kale wasiirka diinta iyo qaafta Somaliland waxa uu dhalinyarada ugu baaqay inay joojiyaan xusaska iyo dabaaldegyada ay u sameeyaan sanadka cusub wasiirka oo arrimahaasi ka hadlayna waxa hadaladiisii kamid oo kale waxa weeyaan waa habeenkii koowaad ee sanadka maxaanku miilaadiga kelmadda miilaadi waxa weeyaan waa dhalasho marka waxay ku taamay waxa iyagu u dabaaldegayaan dhalashadii nabi ciise oo mas'ala diiniya oo qaarkood ba xaflad sameeya dabtur bay sameeyaan habeenkii bay soo jeedaan labadii markii gaadho ayaa buuq iyo qaylayso waxan u ka dhaca waa caadooyinka leeyihiin حتى يهود ويحرم مثل حاقامة أما ما علماء حاقامة يعني يهود ويحرت ميين إن يكون ضيدان ما أنت كريستان وحلين ما لين قارة يومنا وسنة قارة يومنا سيد درتيد وحنا قد جينا للي يرى يهود يلا ضبا إن ما تعاو كوي تونك وحي كدم بيا إن الفريق يلا ضل صحيره ولا قد يحفل ضح حفلة نوع صوك على السماينين وشريعتنا كوبانانين
diinteenna aanay banaynin mabaadi'deena islaamka iyo dastuurkeena ka hor imanaysa sidaa darteed waxaan uga digaynaa hodheelada inay siiyaan xafladaha qabtaan caawa oo wixii COVID-19 ka dambeeya in la soo jeedo oo lagu soo jeedo hodheeladaas waa mamnuuc lama amniguna waxaan ka rajaynayaa inay dabgal ku sameeyaan oo ay ilaaliyaan oo ay ka mamnuucaan hawlahaas iyo xafladaha noocaas oo kale ah ee caawa lagu soo jeediyo ama dadka qaarkood u diyaar garoobeen inay kusoo jeedaan taasi waa arrin runtii aan bannaanayn oo shareecadeena ka hor imanaysa dastuurkeena ka hor imanaysa dadnimadeena ka hor imanaysa waxaana ummad yani kayaan gaara leh ina ciddata shuhuri cinda allahi 12 shahran buu ilaahay yidhi ilaahay agtiisa biluhu waa 12 bilood minha 4 xurum waxaa ka mid 4 bilood xurma leh markaa inkay sanadkeenii 4 bilood ka hor ayaabuu inoo bilaabmay oo bishii afraad oo la yidhaahdo rabiic athani aynu ku jirnaa muxaram iyo safar iyo rabiic alawal iyo rabiic athani oo maanta marayno 13 bish maanta wayta oo bisha islaamku waa 13 bishii afraad ee rabiic athani markaa waxaan leenahay walaalayaal arrintaas waa mas'alo khatar weeye waa mas'alo taabanaysa caqiidadeena taabanaysa waa mas'alo taabanaysa inaynu ka mid nahay bulsho kale oo bulshadeena islaamka ahayn cabdifataax cismaan telefishinka caalamiga ee Somali Cable Hargeysa qaar ka mid ah dadka ku dhaqan degmada Caabudwaaq ayaa ka hadlay xaaladihii dhacdooyinkii sanadka tagay ee 2017 mahad Ismaan Bashiir ayaana warkan faahfaahinaya sanad walba waxba lagu xasuustaa sanadii dhamaatay ee tagtay ee 2017 waxyaabo badan qaarkood ku xasuustaa maanta telefishinka caalamiga ah ee Somali Cable waxa uu jeclaystay inuu bulshada deegaankan Caabudwaaq oo mikrofoonka la dhex qaado si uu u ogaado qof walba wuxuu sanadaasi ku xasuusto waa tahay markaana waxaan la joogo shakhsi kamid ah bulshooyinka magaalada Caabudwaaq marka hore magacaaga ku bilowda bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Deeq Cabdi Xalane deeq waxaad kamid tahay dadka deegaanka maxaa saameyn kugu yeeshay oo dhacdaha oo ku soo maray sanadkani tagay oo aad ku xasuustaa 2017 shakhsi ahaantayda sanadkan tagay waxyaalaha saameynta igu yeeshay oo aad ugu xasuusto waxaa kamid ah jacayl qabtay marka jacaylkiina waa ka yulgaar jacaylkaaga waa heshaan filaya waa helaha dhacdadii ku soo marday oo kula yaab badnay sanadkan intaas tahay waa qisad u daba dheer weeye jacayl dad kale waa jacayl Facebook ah waha laakiin markii dambe salay waa tahay qof aqoon oo Facebook ka bartay Facebook ka jacaylay kadib laakiin waa salay waa tahay markaana waxaan nala joogo madaxweynaha maamulka Everland waa Cabdirasaaq Mustafa ama gudoomiyihii hore ee ururka Axmed Raashid dad badan baa markay maqlaan magaciisa in badan muuqaalkiisa baadi goobaya marka hore madaxweyne ku soo dhawow telefishinka caalamiga ee Somali Cable mahad waa ku dhowahay waa aniga waxa sanadkan isaameeyay maamulkaygii oo shaqayn waayay oo laga xoog roonaaday oo anigii aan iscasilay oo hadda laba meelood baa ugu dambeysay meelihii hadda maamulkaygu ku sii shaqaynayay waxay ahayd gobolka mudug magaalada Gaalkacyo baan ka haysanay gobolka Galgaduud waxaan ka haysanay magaalada Caabudwaaq gobolkii Gaalkacyo waana la ka qabsaday nin gorod la yiraahdo maalin waa ka qabsaday waa ka soo cararnay Caabudwaaq waa ciidanka ugu yimid mid kale oo balaayo ah oo qaybtii hooyada timad ka yimid baa asaguna naga qabsaday hadda waxa ciidankaygu ku shiran yahay duurka kor isugu baxay taas waa meel oo saantada maamulkaaga Everland bay arintaas qabsatay iyo ciidamada maamulka Everland maamulkii Everland State baa meesha ku dhumay oo laga qabsaday oo taas macnaha laga soo saaray hadda gobolada degmooyinka ugu dambeeyay laga saaraya aadaas kula yaabadneed sanadkan waa ila yaabadneed waxa kale oo ku xigay imaaraadka carabta oo walaalaha aan moodayna walaalaha iyo oo nagu haya wadanka Soomaaliya hadda aan nahay faragelin baan gabayna waan ka tiriyay waxaan in imaaraadka carabta anigu waan ku qoonsaday wada iyo waxbana laamiyaal hay sameeyeen bangiyaal waxbana yaalahayn lacag u taalaay dalka iyaga ninkii doonayana waa la dirirnaa dubaqa intaan qaadanan dema ka siinaay nadaaya dad ninkii dekanada qabadaysa ma aqaan intaan dhamas la duulaan madaxa kaga dukeeyaa hooyadiis markaas ay dhahdaa wiilka yaa dilay aniguna markaasaan dhahaa waa iska celin waayay aad ma siya gaasro waxa madaxweynaha maamulka Everland oo labadii dhacdo sanadkan 2017 ee dhamaaday uu ku xasuusanay oo noo sheegay aad buu maasay waa tahay nolol magacaaga adoo ku bilaabaya marka hore magacaygu waa Nasteex Cabdisalaam Barre Nasteex maxaad ku xasuustaa sanadii tagtay 2017 oo saameyn kugu yeeshay aad baad mahadsan tahay mahad Bashiir Cismaan sanadii tagtay waxyaabo badan ma ku xasuustaa haddii la dhaho xasuustaa sanadii tagay waxyaabo badan baa jira laakiin dhacdada igu yaabka badnayd waa dhacdada aniga aan ku heesay maxay ahayd Nasteex oo dhacdadaasi dhacdo jacayl ahayd oo soo martay
waxay ahayd dhacdo jacayl ah oo maxaan ku dhahay tahay dhex martay anigiyo shakhsi kale ama gabar oo ka dhacday degmadan aan joogno sanadkii tegey dhacdaas waxay ahayd muddo badan gabar aan isu soo jeclayn in ay markii dambe waxyaaba wada taqaanaa dumarku buufis ba iska jira oo liya masayr anoo isguursan inay masaydhay oo ka masaydhay adiga ka masaydhay haa dadna kala qabta camal dabcan waxaa imaatay in ay tagto oo ayba Soomaaliya ba dhahdo waa ka tagaya waa tahriibaya camal oo arintii darteed aniga awgay ay doon u fuusho dhahdo waa tagaya markaas aniga markaas jacayl daran baa hayay waxa uu kaleeftay in intaan eraya sameeyo aan hees qaado oo ayadii markaasi magaalada way ka tagtaa way ka tagtay boosaaso ayay tagtay dad kale ay sheegtay waxa la dhahay doon bay raaci rabtaa caawo way tagi rabtaa markaasaan aniga waxaan dabcan igu kaleeftay inaan hees qaado WhatsApp-keeda ugu tuuro hees aniga sameeyay hees tahriib ku saabsan weeye waxa uu boqor waa ilaahay isaga ay beeray been kuma hada qowliga run kama baqan boqoradii haweenka bilcan kale ana qoman adaa buufis qaado boosaaso aad najma kuma na baylayn dawlad ku boodiyay tahriib baraka ma leh badaha gelina soo noqon magacayga waa Mahad Cabdulle Warsame oo ku magac dheer Mahad Weyl maxaad ku xasuustaa sanadii tagtay ee 2017 oo saameyn kugu leeyahay runtii sanadii 2017 waxyaabo badan baa soo maray aniga qaasatan hadii wax guud aan ka hadlayna waxyaabo badan baa jira aniga mahad ahaan marka laga hadlo wax badan baa noloshayda iska bedelay haday noqoto dhinaca waxbarasho aqoontayda aan sii siyaadsaday dhinaca kale oo aan iska bedelay marital estate-keygii xaaladaas oo aan guursaday oo aan reer yeeshay maanta sanadkan ayaa ahaa sanadkii ugu xasuusta badnaa dadka Soomaaliyeed maadaama ay dhacdooyin aad u foolxun ay dhaceen iyadoona ay waxyaalo badan oo dadka Soomaaliyeed ka farxiyeen ay dhaceen Mahad Bashiir Cismaan Somali Cable Cabudwaaq guddiga joogtada ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa kulan Muqdisho ay ku yeesheen waxay kaga soo horjeesteen go'aanka xeer ilaaliyaha ay ku aadneed xasaanad qaadka laba ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya Ahmed Cabdi Cali ayaa warkan guddiga joogtada ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa kulan uu maanta ku yeeshay xarunta Villa Hargeysa ee magaalada Muqdisho ka soo saaray qaraar ku saabsan xasaanadka qaadista xildhibaano uu dhawaan soo eedeeyay xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Axmed Cali Daahir kulankan oo uu shir gudoominayo gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa waxaa laga soo saaray qaraar dhowr qodob ka kooban guddiga joogtada ayaa isku raacay in la joojiyo soo jeedintii ka timid xeer ilaaliyaha guud ee qaranka ee ku saabsaneed xasaanadka qaadida xildhibaanada kale ah xildhibaan Xasan Macalin iyo xildhibaan Cabdi Saabir Nuur Shuuriye sidoo kale guddiga joogtada ayaa sheegay in aanu jirin sharci gaar ah oo tilmaamaya nidaamka ilaalinta xasaanada habraaca loo marayo xasaanadka qaadida xildhibaanada iyo habraaca loogu gudbin lahaa kulanka guud ee golaha shacabka gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka mudane Mahad Cabdulle Cawad ayaa kulanka kadib warbaahinta u akhriyay qaraarka ka soo baxay guddiga joogtada ee golaha shacabka markii uu dhageystay warbixinta koobnayd ee xeer ilaaliyuhu ka horjeediyay kulanka guddiga joogtada golaha shacabka 21 December 2017 kulankaas oo xafiiska xeer ilaaliyaha laga filayay inuu ka jawaab celiyo codsigii guddiga joogtada ee ahaa inuu xeer ilaaliyuhu guddiga hor keeno ama la wadaago cadeymaha uu arrinkan ka hayo si uu guddigu ugu qanco sida ku qeexnayd qoraalkii ku taariikhaysnaa 19 December 2017 ee sumadiisu ahayd 402 xariijin 20 xariijin ba 10 xariijin 17 markuu arkay in xeraalayuhu ka gaabsaday inuu guddiga la wadaago cadeymaha uu hayo xafidaadda wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ayaa markii ugu horeysay awaamiir culculus ka soo saartay kala iibsiga xayawaanka diinka oo muddooyinkii ugu dambeeyay dad fara badani ay aad u hadalhayeen Zeynab Maxamed Aadan ayaa warkan inoo faafahinaysa wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliya ayaa ka hadashay hadalhaynta baraha bulshada ee ku aadan kala iibsiga xayawaanka diinka agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha Maxamed Cumar ayaa warbaahinta u sheegay in wasaaradda ay ka xun tahay hadalka ka jira baraha bulshada ee ku aadan kala iibsiga xayawaanka diinka waxa uu shaaciyay in arintaasi ay saameyn ku yeelan karto dalka maanta halkan waa wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa waxa kulan ku yeeshay agaasimayaasha iyo agaasinka hay'adda ururka caafimaadka adduunka ee xoolaha
oo wakiil ka yahay doctor Faarax runtii waxaan maanta ka hadlaynay baryahan warar leysla dhexmarayay oo ku saabsan diinka oo hadda qorshe cusub loo keenay dad aan u naxaynin deegaanka iyo duurjoogta iyo xoolaha dadkaasoo la sheegay inay ka ganacsadaan hadda warka xaqiiqadiisa ma hayno laakiin waxaan baraha bulshada ka aragnaa in diidiinkii oo lasoo ururinayo oo isaga dhib loo geysanayo runtii diidiinka wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ilaahay uu ku manaystay Soomaaliya wuxuuna yahay kheyraadka dalka ayuu ka mid yahay oo dalka caanka ku yahay runtii haddii diinka la xaalufiyana waxaa culays weyn soo korayo dheelitirnaanta kala duwanaanshaha noolaha Soomaaliya biodiversity-ga noolaha. dhanka kale agaasimaha u qaabilsan caafimaadka xoolaha wasaaradda xanaanada xoolaha Faarax Maxamed Cali ayaa amar ku bixiyay in ay mamnuuc tahay ka ganacsiga xayawaanka diidiinka sharciga dalka ka jirana uusan ogolayn dadka ka ganacsanaya xayawaanka diidiinka waxaa loo sheegay in hay-adaha ammaanka ay wasaaradda xanaanada xoolaha ka codsatay in la soo qabto dadkaasi si maxkamad loola tiigsado. waxaan rabnaa annagoo ku hadlayna magaca wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa inaan halkan ka soo jeedino arrin baryahan laisla dhexmarayay oo ah mataqaanaa ku saabsan xayawaanada dalka xayawaan ka mid ah oo la yiraahdo diidiin shacabka iyo meediyada aanu ka maqlaynay ka ganacsigiisa iyo mataqaanaa baabi'intiisaba waxaan annaga amar ku bixinaynaa wasaarad ahaan inay tahay falkaas faldambiyeedkaasoona ogoleen sharciga dalka iyo qawaaniinta xeerka mataqaanaa veterinary code-ka ama mataqaanaa sharciga xoolaha u yaala. hadalka wasaaradda xanaanada xoolaha ee ku aadan amarka adag ee ka soo saartay ciddii lagu arkaa iyadoo ka ganacsanaysa xayawaanka diidiinka in lala tiigsanayo maxkamad ayaa ku soo beegmaya xilli baraha bulshada toddobaadyadii ugu dambeeyay uu qabsaday hadalhaynta ka ganacsiga xayawaanka diidiinka. Zeena Maxamed Aadan, Somali Cable, magaalada Muqdisho. hay-adda culimada Soomaaliyeed ayaa kulan maanta magaalada Muqdisho ay ku yeesheen waxay kaga hadleen khilaafka siyaasadeed ee ka taagan dalka Soomaaliya. Hiba Maxamed Nuur ayaa warkan inoo faahfaahinaysa. shir jaraa'id oo maanta magaalada Muqdisho ay ku qabteen mas'uuliyiinta hay-adda culimada Soomaaliyeed ayaa waxa ay kaga hadleen dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee siyaasadeed ee ka dhacay gudaha dalka Soomaaliya. mas'uuliyiinta hay-adda culimada Soomaaliyeed ayaa waxa ay ka hadleen qaabkii ay dowladda u wajahday xarigii siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo weerarkii shalay gurigiisa loogu geystay Senator Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid. culimada waxa ay ka digeen in laga fogaado isticmaalka awoodda sharciga iyadoo loo marayo hab qaldan waxayna soo jeedinayaan hanaanka sharciga dalka inuu sareeyo. Sheekh Bashiir Axmed Salaad oo ah gudoomiyaha hay-adda culimada Soomaaliyeed ayaa warbaahinta u aqriyay bayaanka ay soo saareen iyo fariinta ay dowladda u dirayaan. ujeedo bayaanka culimada Soomaaliyeed ee ku aadan khilaafka siyaasadeed. hay-adda culimada Soomaaliyeed iyada oo gudanaysa waajibka ka saaran ilaalinta diinta Islaamka iyo danaha ummadda kana duulaysa axkaamta iyo ujeedooyinka shariicada Islaamka kana walwalsan xaaladda siyaasadeed ee dalku marayo iyo isku dhaca siyaasadeed ee soo noqnoqday waxay soo saarayaan bayaankan soo socda. culimadu waxay soo jeedinayaan in mucaaradnimadu noqoto mid wax dhista oo ay noqon mid wax dumisa. waxayna ku talinayaan culimadu in la wada tashado la isuna naseexeeyo. nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay ad-diinu an-nasiixa. culimadu waxay ka digayaan falalka iyo ereyada xanafta leh ee keeni kara in dalku dib ugu noqdo wixii dumiyey oo ahaa
qabyaalad dulmi danaysi. Sheekh Cali Wajiis oo ka mid ah culimo diinka Soomaaliyeed oo wareysi siiyay TV-ga Somali Cable ayaa sheegay in aysan aqbali doonin in ciidamada dawladda ka shisheeya ay u shaqeeyaan dalkana ay joogaan tan xaqooda midda labaadna anagu marna ma aqbali karna bas sheekh u sheegay baan wada qabnaa in ciidamo aan ciidan dawladeed ahayn oo aan istaan dawlad qaban oo aan taladii military sheeganaan taliya gorod yaani maarata Cabdiweli Jaamac gorod aan hoos imaanin haddii boliis sheeganayaan aan hoos taliya booliska hoos imaanin haddayna mas'uuliyiin aan taliyana mas'uul hoos imaanin dalkan inay bastolad ku haystaan wax xaran أنا waxaan arkaa shirka jaraa'id ee hay'adda culimada Soomaaliyeed ay Muqdisho ku qabteen ayaa imaanaya kadib markii shalay gurigiisa ay ciidamo weerareen Senator Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid oo kamid ah xubnaha aqalka sare sidoo kalena ah gudoomiyaha guddiga dastuurka baarlamaanka labada gole Hiba Maxamed Nuur Somali Cable Muqdisho dayac xooggan ayaa laga dareemayaa garoonka lagu ciyaaro kubadda cagta ee Cawaale Stadium magaalada Gaalkacyo xilli sanadka soo socda lagu wado in koobka maamul goboleedyada uu ka qabsoomo maamulka Puntland Said Cali Nuur Taatiko ayaa warkan Gaalkacyo nooga soo diray garoonka kubadda cagta Cawaale Stadium waa mid ka mid ah garoomada ugu waaweyn ee Puntland ku yaala haddana ma helin dayactir ku filan waxaana xilligan garoonka ka muuqda burbur xooggan iyadoo taasi jirta haddana bahda sportska gobolka Mudug gaar ahaan degmada Gaalkacyo waxay qabaan rajo xooggan oo ku aadan in bulshada Soomaaliyeed ay ka qayb qaadan karaan dib u dayactirka garoonka kubadda cagta Cawaale Stadium waa kuwan qaar ka mid ah dhalinta daada yar ee sportska degmada Gaalkacyo oo shacabka Soomaaliyeed ka codsanaya in loo dayactiro garoonka kubadda cagta Cawaale Stadium waxaan salaamayaa dhalinyarada meeshaan isku timaaday waxaan rabaa in garoonka nala dhiso garoon roog qurux badan iyo meesha dhagaxda laga hagaajiyo garoonka garoon fiican aan ku dheelnaa rabnaa garoonkan garoon aad u fiican weeye dad badan oo ku jaban in laga hagaajiyo garoonkan oo laga dhigo roog waxaan baaqayaa wasaaradda Puntland in laga hagaajiyo garoonkan Abuukar Cawaale Qaadiid waa shakhsi u ololeeya in bulshada Soomaaliyeed laga wacyigeliyo halista muqaadaraadka gaar ahaan qaadka waxa uu fariin u diray shacabka Soomaaliyeed taasi oo ku aadan inay ka qayb qaataan dib u dayactirka garoonka kubadda cagta Cawaale Stadium si dhalinyarada Soomaaliyeed looga baajiyo halista muqaadaraadka akhyaarta ehelka u ah sportska magaalada Gaalkacyo waliba garoonka Cawaale foot stadium oo aad sidaad aragtaanba ay runtii ka muuqato dayac fara badan waxa la oran karaa reer Gaalkacyoodku ama reer Puntland sportska meesha ay hadda hiigsanayaan championki Soomaaliya inay yihiin in ay dhalinyaradu aad u jeceshahay sportska iyo dacdarrada garoonka Cawaale ka muuqato isma qabataan oran karaa waxaan oran karaa looma hiilin dhalinyarada reer Puntland ee sportska jecel oo ka fogaan lahayd fal dambiyeedyada isticmaalka muqaadaraadka iyo waxyaalaha foosha xunba oo sportigoodaas iyo caafimaad ahaan iyo dhinac walba u anfacaya bay ku raaxaysan lahaayeen qaar ka mid ah galabta la jooga garoonkooda isaga ciyaaraan laakiin waxa ayaan daraa dhagaxa iyo qashinka iyo dhalada waxaas inay ku jabayaan oo caafimaad bay ka raadinayaan sportskii inay meeshii caafimaad darro kala kulmaan waxaan boorinayaa oo aan ku baaqaynaa oo aan ku celcelinaynaa reer Puntlandow garoonka Cawaale xujuu idinku yahay Axmed Cawaale Liimaan Allah u naxariisto ninka calanka buluuga sameeyay waa lagu maamuuso lagu ma sharfay waa lagu sharfay garoonkaas oo lagu maamuusay laakiin ma istaahilo xero xooluhu ku xaroodaan in loogu magac daro garoonkan wuxuu mudan yahay in la qurxiyo calanka lagu sharxo dadkii Puntland iyo Soomaaliya wax soo qabto dhan lagu sharxo lagu maamuuso lagu qurxiyo ubadka iyo dadka ku cayaarayana ay habbi ku noqdaan oo ay ku farxaan oo ay iskula qab weynaadaan aabbayaasha iyo mas'uuliyiinteeda noo dhistay waxaan baaq u dirayaa wasaaradda sportska Puntland falxumay idin tahay wasaaradda sports sadaatiin aad Cawaalana arkaysaan aad ka aamustaan ganacsatada waxaan leeyahay Cawaale waa fursad maalgashi oo aad wax ku sponsor garaysan kartaan oo aad ganacsigeena ku xayeysiisan kartaan oo aad dhar sports iyo qalab sports wadanka ku keensan kartaan ka faa'iideysta Cawaale ganacsi indha ganacsi idinkoo ku eegaya sponsor gareeya ragba uu istaagay madama waxa Cawaale u baahan yahay 10% oo dadka Puntland bal Soomaali kale iska daa
min $1 bixiye ma dhamma waxa looga baahan yahay marka waxaan leeyahay arrintaa ha loo istaago arrintaa ha la isugu tago waana naqaanaa hadde waynu isnaqaanaa waxaynu isugu tagno oo u kacno waan naqaanaa sida looga mara dhaliyo gobolka mudug waa lafdhabarta sportiska Puntland marka loo fiiriyo garsoorka ciyaaryahanada iyo waliba rogcadayaasha sportska Puntland sida Cali Nuur Cabdi sida Cali Taatiko Somali Cable TV gaalkacyo guud ahaana inta ayaan ku soo gabagabeynayaa warka telefishinka Somali Cable oo idinkaga imaanaya stuudiyaha magaalada Muqdisho waxaa idin waramaya anigoo Abdicays Cabdullaahi Riyali inta aynu ku kulmayno warka xiga waa bahdii Somali Cable oo idin leh sidaas nabadgeliyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh